aniga durdurmeeday aan ka soo tagaay in ninkaas uu imaadiyay oo YouTube ii furay galaashan marka aan dhahay ana meel isku soo bixi kara baasweerkayga iyo waxayga isii YouTube-ka isii bil walbana $100 uu iga jaran jiray boqol walba $30 uu ka jaran jiray ma aan bixaysa markaan dhahayna baasweerku badashtay والله هذا حالة تاجن إلى مركي وحاجة كوسو فكريسي هذا ما تنين إن عذير كاي أدأمنت سكونيك أتين سكولوس أتين أدأمنت وباسي ويركي نكابة بشتي حالة أو أذكي حالة عروسوة ما أنت وحلو قدرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي وين ملول بقى جوتان فانسكيجا فاميلكيجا واحد الله سود هذا برنامج كم على جيكي شكير اوفيشال ميل والبا جوجتان waxay gudu cunaa bash iyo barwaaqo ibna dheeri cibaada san maanta macalin jeeki muxuu idan wada anta horta waxaan soo fadhiistay waxyaabo badan aan maqlay awgeeda waxyaabahaasna waxaa ka mid ah horta waxaan maqlay fartuun balbalaarka in YouTube-keeda laga xiray يا هي واقض ولا جحد اوكي ما حسب بي ان فرتون بالبلاركا يوتيوب كلا جحد وحسب بي الويري ننبا فرتون بالبلاركا markay dadka dhan isu soo dhaceen ay banaanka soo istaagtay in Faransa joogo ayaa xabadka u tuntay oo yiri gabadhan waa walaashay aniga ayaa garab qabanayo wax alla waxay u baahato aniga u qabanayo hadii aan leed camera hadii aan leed nalalkii lagu shaqeey lahaa hadii aan wax walba hatta lacag hadii u baahato cash maxaan ku dhahay marka arintaas aniga jeekay ahaan waxaan ku dhahay qofka ugu horeeyay la soo wacay ayaan ah ninkaas Faransa joogo qofka uu soo wacay ugu horeyn aniga ayuu ahaa uu soo wacay waxaan jeekay hay iyo waran nabad wala fiican yahay oo nin Faransa joogo oo aad ku taageero haye waxaan rabaa gabadhaas walaashaada ah meeshaas joogto in aad garab siiso haye si walbo inaadan adiga jid ugu tagin aniga ayaa waxaan diyaar u ahay wax walba inaan u qabto YouTube inaan u furo camera aan u galo wax alla waxay u baahato in aan siiyo anigoona shilin ka rabin waa tahay waxaan ku eray waayahay adiga caawinaysid soo ma aan haa oo marka aniga hadda maxaad iga baahan tahay maadaama ay tiri waxaan ku ahay fanskaaga wiilgayga ayaan ku taageeri jiray maanta ayaan ku soo baahday okay maxaad iga soo baahday waxaan ka rabaa wiil gabadhaas inaad garab siiso aniga ayaa garab siinayo yiri adigana waxaan ka rabaa macallimo in aad dusha saarato waa tahay sideen garab kugu siiyaa marka gabadhaas samaxay ku tahay waa walaashay wiil waa he walaashay marka run ahaantii anigana aad iyo aad waxaan u xishmeeyaa fanskeyga waxaan u xishmeeyaa qofka isoo waco misna ila hadlo garab i weydiisto waa xishmeeyaa marka waxaan ku iri maadaama walaasha ay tahay ama waa walaashay garab ayaan siinayaa garab kale ma kaa rabo yiri muku dhahay lacag sii muku dhahay wax qabo waxaan kaa rabaa yiri way ku imaanaysaa aydan waxbay ku duubaysaa adigana waxbaa u duubaysaa sidaas isugu danaysta waa tahay marka waqtigaasna fartuun run ahaantii waxay ahayd qof aad iyo aad garab u baahan garab ayaan siiyey way ii timid ugu horeyn kilibka aan duubay aniga ayada aan isla duubnay bal ila daawada wax yar qalbiga qeybtan kaa siiyey qaarka bidixaan kaa quudiya qalbiga qeybtan
kaa siiyey qaarka bidixaan kaa qoodiya ani haddii garabkeyga la istaagaayo oo maanta lacagtaas lagu xujeeyey inkastoo aniga maanta aan haanin oo waalidkii i dhalane dad masaakiin oo iska duruufeysan ay yihiin ay heli karin haddii garabkeyga la istaagaayo oo dhinaca laga istaagaayo waxaas dhinaca laga dhiibaayo rajo weyn way leedahay in youtube-kaas mar labaad uu soo noqdo haddii maanta horta been kuu sheegaayo 3,500 meelaan ka keenana ma haayi waxa aan ku bixinayo aan dhaa waxaan youtube-ka aan ka helo horaan waxa nolosheyda aan ku wadaago ilmahayga aan siiyo mar dugsi iskool aan ku bixiyo marna waxaan maamada ka siiyo waxa aan nolosheyda ahayd maanta 3,500 waxaan aniga ku bixiimaa haddii lii garab istaagaayo lacagtaas liila bixinaayo aniga waxaan ku faraxsanahay inuu youtube-keyga mar labaad ii soo noqonayo waa tahay in run ahaantii gabadhaas walaasheyda waa aan soo dhawey ayadana waxbay ii duubtay markaas kadib gabadhii kaamira loo gaday wuu isoo waciyey ninka wuxuu yidhi lacag baan usoo dhiibay kaamiray ku gadanaysaa bal jeekeeyow gabadhaas la socda waa yahay ilaahay maqaadiirtiisa anigiyo garab siinaya ayaa wiil kale garab macnaha isagana ninkii faransa joogay ka codsaday in gabadhaan haddana garab in la siiyo qof kaloo ka codsaday waa tahay garabkii dhankaasna garab baa laga siinayay anigana garab ayaan siinayay way ii imaanaysay kilibyay ii duubaysay anigana waan u duubay ayadana way saaranaysay anigana waan saaranay marka yarkii wuu ila soo hadlaa mar walba horta been waa cilmi shaydaan wuxuu leeyahay waa mahadsan tahay aad iyo aadad u garab qabatay gabadha aniga run ahaantii waxba kama rabo aniga waxba kama rabo hil iyo garabkeeda ayaan taaganahay kaamira waan u gaday hadda waxaan rabaa inaan u gado nalalkii iyo darbiyadihii iyo adduunyadii iyo wixii aad ayaan ugu farxay run ahaantii waxaan idhi maadaama aad tahay qof walaal aad garab siinaysid ku soco garab ayuu siiyey heer wuxuu gaarsiiyey marka in ayada kaligeeda ay shaqaysato marka waad ogtihiin markii laba qofood ay isfahmaan dad baa jira adiga macnaha waxba ka dhex abaabulayo anigay fartuun qof baa wax naga dhex abaabulay anagoon isxumaynin wanaag ayaan ku kala baxnay waxaa youtube-kaaga u shaqayso maasha allah tabaaraka allah anigana keygaan u shaqaysanaya lacalla haddii isugu soo baada haddana waan isla joogaa dad walaala ayaa leeyahay marka hadda anigiyo arrintii kow aan ogaa ilaa iyo meeshii ilaa kaamira la gada ilaa iyo adduunya la gado oo ay taagneed waxba kama rabo wuxuu igu yidhi weliba markay 3 bilood ama 2 bilood shaqayso malaysiya ayaan u dirayaa okay maadaama iyada inta ay joogtay war aniga wuxuu noqday saaxiibkeeda waan la sheekaysanay waxaan idhi maadaama inta ay joogta ayada halkaan ay ka shaqaysanayso malaysia maxaad ugu diraysaa ayadaa mar waxay leedahay aniga malaysiyan aadaa marna waxay leedahay aniga halkaana iska joogaan ku shaqaysanaa waan bixi la ahay sirteedii iyo siday wax u rabto oo adiga waa walaashaha eri hadday rabto malaysia in aad geysona gey hadday rabto inay inta ka shaqaysatana aniga waxaan go-aan ku gaari yiri guri inaan u kireeyo kiradii aan bixiyo anigoo waxba ka rabin aan saacidayo ayada inay lugeeda ku istaagta aan rabo si wanaagsan ugu hadlay laga soo teg marka anigoo min awal ilaa iyo min fasal aan ogaa wixii ka dambeeyey kolley aniga ma ogi waxay arrintu ahayd walaaltinimo ayaan u caawinayaa balse hadda waxaan maqlay inuu ninkan yiri fartuun 30% ayaan kaa rabaa ayaduna ay tiri ma awoodo oo sidii oo baasweerka ugu bedeshay ninkii shalay walaalka ahaa oo caawinaya gabadha xataa lacag ugu darayay ayaa maanta wuxuu yidhi waxaan u baahanahay 30%. ayaduna waxay tiri ma awoodo okay marka qofkan wuxuu yidhi gabagabo ama macnaha isii 30% amaba 3,500 ayaan adiga kugu kharash gareeyey lacagtii ii soo celi youtube-kana adiga la wareeg waayahay marka hadda
haddii arrintu saas tahay anaga horta fartuun waa walaasheen wixii garab ah waa diyaar waxaa noqonaya qofka ugu horeeya in garab qabta fartuun madax bannaan ha ugu dhigo youtube-keeda anaga marka waxaan maqalnay sida war iguma maqaal ah fartuun waan garab qabanaynaa inta youtube jirta ama soomaaliya ha ahaado ama dibadda ha ahaado in wax laysku dardari doono qofka ugu horeeya ayaa noqonaya aniga macalin JK haddaan ay sheekeen official waxay diyaar u tahay waxa fartuun loo qabanayo qofka ugu horeeyo inaan u qabto en fartuun marka dhibane hadday tahay in lagu fiirsada ma aha waa sax waa in garab la siiyaa wixiina macnaha maadaama ay noqdeen markii hore uu ahaa caawinaad haddana ay noqdeen xujo iyo in lees dhaho macnaha 100% ayaan u baahanahay kulley waa laga wanaagsanaa asagoona ba xujeyninba ayuu wax walba usoo bandhigi karay uusan waxba ka xirin marka run ahaantii annaga waxaan noqonaynaa sheeko yar tiim haddaanu nahay dadka ugu horeeya fartuun garab qabta amaba wixii lees saara oo qof walba macnaha la yiraahdo intaasaa ku saaran macalin JK ahaan ma aha markaan waxaan ka hadlayaa team sheekay official waxay diyaar u tahay in ay fartuun garab qabato midda kale waxaan leeyahay dadka badiba markii hore waxay leeyihiin si walaaltinimo ayaa wax kugu qabanaynaa adigoona dhihin si walaaltinimo ayaa wax kugu qabanaynaa qofkan waa inaad ku heshiis la gashaa adigoon hami dheer aadan gelinin walaalo youtube-kan waan furayaa wax walbo loogu baahda aniga ayaa bixinaya laakiin ogow shir ayaan ku nahay qofkaasi waqtigaas hami dheer ma aadan gelinin ama waqtigaas wuxuu ku leeyahay waaye walaalow sheerkiyaan ogola ama walaalow ma awoodi haddaad adiga wax ii qaban karto guji ahaantaada igu qabo laakiin in la yiraahdo walaaltinimo wax kugu qabanaya kadibna macnaha youtube-yada liska xirto ama baasweerada liska bedeshto waa wax aad iyo aad loogu wanaagsan yahay qofka biniaadankana dismoraal uu ku noqonayo marka aniga maanta sheekeen official haddaan dhaho qof kale ayaan garab siinayaa asagaan ku wareejinaya oo berita aana dhaho aniga waxbaan kugu leeyahay sheer isii qofkaas koo wuxuu siri macalin JK waaba ku siiyeyba waxaan waxba kaama rabo laakiin haddaan dhaho markay xoogaa shaqayso reeha isii aniga lacag فالحمو ومكان إن دتك ولا الله وإسقر خبطان لكن إن شاء الله وحن رجينا تيم أنت شكلس إنسان جاري إن أسرع إسحالين دونان كان أسرع ولا شيء إصلاح دونان إن شاء الله تعالى هدي مري ويسنا والسدا أنا كمسؤولية دنا لا صارنا ليري يوتيوب لي أي واحد قبنا يسافرتون ديار أي أنا نمبر 1 شكل أوفيشال تيم واحد ديار وتافرتون إني واحد علفك معيد مي عادك مسارمي شديد هذا بوا وصوع رقاي أنتي إني فرتون وحياة بدن أي كهذا شيء واحد تري أنا يوتيوب كان أنتي ولالكي ويفري هو يوم كبيرة عيالكي كان كبيرة هذا كان وحامل فرتون هذا قرب أي أباهمتها يعني فيرين أنا قرب وحيابي هوري aan fiirinaysa maanta meesha ku jirto iyo qofka waqtiga xaadirkan garabka uu u baahan yahay ayada kaligeeda uma baahna waxaan ayada kaligeeda ma isku koobin waaliday kabiilaysa ciyaal ayay kabiilaysa naawna xaamilo marka naxariista aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay waqtiga xaadirkan fartuun inaan garab istaagno waan garab istaagaynaa qof kalena macnaha hadduu diyaar u yahay asagana wuu garab istaagi karaa uusan youtube leeyahin wax walba anaga laakiin waxaan diyaar u nahay fartuun inaan u naxariisano ilaah baa naxariis laga helaa anaga waan isku gargaarnaa fartuun inaan garabkeeda istaagno waqti xaadirkan ma aha waqtigii fartuun loogu tegi lahaa meel cidlaa waqtigii aan garabka siinay run ahaantii horta soomaalidu waxay leedahay maamaahin badan waxay leedahay cirbid aruurta misaar waxay leedahay quraansho aruurta bulac way jiidaa quraansho waaya hadday aruurta bulac waa jiidaa waa run marka anaga wax yar hadday iskaga jarjarno ahaantii fartuun wax weyn ayay u noqonaysaa wax weyn ayay u qabanaysaa marka waxaan leeyahay fartuun hala garab istaago waan ku soo celinayaa youtube ley keliya ma aha qof walbo garab istaagi kara fartuun
yuusan dib isu dhigin ha garab istaago annaga waxaan garab siinayno fartuun oo keliya maaha waa dadka ka dambeeya waa hee dadka ka dambeeya run ahaantii aniga waa igu wallaahi igu bilaahi igu tallaahi sheeko yar team official mis wax kale fartuun garabkaaga ayaan taaganahay niyadda iska dilin haddii la dhihi lahaa youtube cusubaa la furaa lacag baa loo baahan yahay keedaa loo soo celinaa haddii la dhaho intaba diyaar ayaanu nahay sheeko yar official diyaaray u tahay marka idinka ayaa idin leeyahay marka fadlan fartuun hala soo caawiyo fartuun waa ay dhiban tahay hala soo caawiyo walaashayna waa macalin jekey oo idin leh insha allahu tacaala kulanti dambe wacan oo wanaagsan oo weliba anagoo fartuun ka qosolsiina oo ayada sida ay rabto aan u yeelno qof walba siduu rabo horta ilaahay uu ka helaa laakiin anagana dadaal ayaan gelinaa insha allah youtube lay dhamaan waa ay maqlaysaan halaysku soo arooro marka insha allah